dad badan waxaan u malaynayaa waxay arki jireen anigoo boosaaso iyo qardho iyo garoowe iyo maraayo maanta maxaa galmudug mahad ka soo galay ayaa la isleeyahay barasho wanaagsan mahad cabdulla cawad wuxuu ka dhashay beel la yidhaahdo surre ayuu xildhibaan u yahay beesha surrena halkaan hobyo ah waxa weeye reere la sheegay oo laba ahaa saddex bay ku yihiin magaaladan 50 kilomitir deegaan u jira oo ay xarun u tahay degmada Bacadweyne 100 kilomitir oo cudurla deganayd ayay beesha surre degan yihiin deegaanka laga bilaabo buurshe ilaa iyo Dusmaalay ilaa iyo Xaraale ilaa iyo Lajiide ilaa iyo waxa weeye deegaankaas oo dhan oo 68 kilomitir ah ayaan xildhibaan u ah oo galmudug ka tirsan laakiin se Puntland deegaan baa iga jiro aan islahaa wax ka soo saar deegaan ilaa iyo Nugaal ilaa iyo Bari ilaa iyo Sanaag ah ayaa beeshan wax ka degan tahay oo xuquuq ka maqnayd laakiin se meeshaas beel baa wax ka dhisatay 1998 beeshii bayna ku egtahay laakiin se beeshaan uu ka soo jeedo galmudugnimadeedu mid cid la weydiisanaya ma ahane waa mid jirta oo aan su'aal ku jirin 10% baan leeyahay baarlamaanka galmudug dowladda koobaad ee baarlamaanka aniga weeyaan taliyaal ciidan baan ku leeyahay waxa weeye jeneraal ku leeyahay ma aha wax su'aal ku jira halkan ma aanan raadinayn sababtoo ah anaa iska leeyahay laakiin se kuwa xuquuqdooda ka maqantaan u raadinayo Bari iyo Nugaal iyo jira ayadina waa la soo waayay marka madaxweyne Cabdulle Gaas saaxiibkay buu ahaa laakiin se xildhibaanada dooranayay beesheedu kuma jirin madaxweyne Saciid Dani waa saaxiibkay weeyaa asaguna laakiin se beelihii doortay anuu kuma jirin laakiin se madaxweynaha halkaan fadhiya 8 xildhibaan oo beesheeda soo doortay waxbaan ku leeyahay waxa weeye qoysku asagoo ka dhashay سلام بالله هذا تضوع عضب كلها أنا أقول سيدنا بقول له يا ذكاء أنا أتفهم مركا صوماليا وكلا قاضي أو قيب وكلا قاضي لكن أنا أقول هذا خدنا شو سكر الله هذا أول بكرة قاضي أنا أقول تضرب اللي عم بقى وحنقول له ما أقول له هذا هي الشباب oo laba wasiir oo buuxa iyo laba wasiir dawle iyo laba wasiir ku xigeen baa ku leeyahay sababtoo ah waxa weeye deefo iyo kabxanley iyo deegaanka ugu fiican ugu beeraha badan leh ayay beeshu degan yaa ii diiday ma hasanaad iyo aawe nimankii cayd waxa weeye Hirshabeelle wax ku leeyahay waa reer Hiiraan ma la dhihi karaa galmudug waxba kuma laha anigu Hirshabeellena waa leeyahay galmudugna waa leeyahay Puntland حقوق باكو مقنو waa laga heli doonaa marka qof fiican la gaaro hatta xogaha yar beelihi 98 dhistay ha ku ekaatay laakiin qof fiican marka la gaaro macid baa barayaysa waxa weeye arrinkaasi waa cidii ay su'aal uga jirtay Abdul Bukhari waa la ogaayay gudoomiyahan kale xaqu ka yimid gudoomiyahan kale meeshuu wax ku leeyahay hal la ogaado cidii su'aal uga jirtay xogaha khilaafa ayaa kursiga wala xararo oo xamar ula aadayo Cabdikariim ma hal salaadiya waaga ka cararay marka hadda madaxweynuhu hadduu soo ceshanayo kursigiisa asaga u taalla walaalayaal intaasi kaftan iyo isbarashaha laga ahaato